xikmaddu waa hibo gaar ah oo Allah siiyo adoomadiisa waana dhaxal ay ka faa'iideystaan jilba-jilka ka dambeeyo halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa xikmadihii laga qoray dadkii ugu xikmadda badnaa ee adduunka soo maray magacaygu waa Jaabir Cusmaan ku soo dhawow xikmadso nagu soo biir oo like saaro saaxiibnana noqo mahadsanid xikmaddeena koowaad in dadka la qanciyaa waa arrin aad u dhib badan oo aan la gaari karin iyo had walba ha moogaan waxa ay ku hagaagayso diintaada sababtoo ah dadaal walba aad bixisid kuma raaligelin karaysid dadka qofkii xadiiska bartaa waxa uu helaa daliil adag qofkii naxwaha bartaana waa laga heebaystaa qofkii af carabiga bartaana waxaa hagaaga dabeecadiisa qofkii xisaabta bartaana waxaa hagaaga ra'yigiisa qofkii aan naftiisa damaanad qaadinne aqoontiisa waxba uma tarayso waxaas oo dhan waxaa kaa deeqa oo madax u ah Allah oo aad ka baqdaa Imaam Shaafici hadal kaalmadiisa waa inaad u badnaataa aamusnaan cilmi kaalmadiisana waa inaad u badnaataa fikir rag afar waxyaabood baa tiir u ah inuu leeyahay diin amaanada uu ilaaliyo sharaftiisa uu ilaaliyo aqlina uu leeyahay amal la sameeyo waxa ugu weyn 3 in la noqdo deeqsi iyadoon hanti badan la haysan in xalaal miirad la sameeyo iyadoon dadka la istutusaynin iyo in xaq laga hor sheego qofka laga baqaayo dadkuna ay wax siisma ka rajeeyaan haddii aad doonaysid inaad xaqiijisid waxyaabo qiimo leh oo noloshaada ku saabsan gaar ahaan iyo mustaqbalkaaga shaqo waxa waajib kuu ah marka hore inaad ahayd shakhsi qiimo leh dhanka aragtiyadaada ee horumarinta naftaada dhaqdhaqaaqaaga oo yaraada wuxuu ku dhaxal siiyaa shaki iyo cabsi dhaqdhaqaaqaaga oo batana wuxuu ku dhaxal siiyaa kalsooni iyo geesinimo haddii aad doonaysid inaad xakamaysid baqdinta ha kabrorsan gurigaaga adigoo ku dhex fikiraya ee ka bax gurigaaga nafsadaada howlgeli Dale Carnegie qofka mar walba ka hakada waxbarashada ayaa ah waayeel xataa hadduu yahay 20 jir laakiinse qofka waxbarashada si joogto ah u wataa weligiis waa dhalinyaro waxa nolosha ugu wanaagsan waa in aqligaagu ahaadaa mid dhalinyaro ah weligiis Henry Ford habka ugu fiican ee maal lagu kasban karo ma ahan in la helo maal ee waa in la hagaajiyaa nafta Henry Ford sababta ugu weyn ee u arki laayihiin dadka fursadaha waxa ay tahay inay fursad ku dhex dhuumato muuqaalka hawsha adag Thomas Edison malihi waxyaabo hibo ah oo ii gaar ah ee waxa baan ahay qof su'aal badan oo xamaasad badan jecelna inuu aqoon kororsiga u wato si joogto ah Einstein kuwa fakara waxa ay xaliyaan mashaakilada laakiinse indhergaradka waxa ay ka hortagaan inay dhacaan mashaakilada Einstein intaan ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkeena xiisaha badnaa intaan ku kulmi doono muuqaal lecin ah waxaan idinkaga tagi doonaa nabadgelyo mahadsanidin